maalin ayaa boqorku wuxuu dhahay waxaan rabaa in Babylon ay noqoto caasimada dunida ugu qanisan iyo dadka ku nool inay noqdaan dadka ugu qanisan dunida. Laakiin wuxuu ku fikiray sidee midaas ku dhici kartaa sababtoo ah hantida oo dhan waxaa kaliyeystay dad yar oo taajiriin ah mana rabaan inay baraan shacbiga sirta ka dambaysa taajirnimadooda. Boqorka ayaa wuxuu codsaday in loo raadiyo qof ku takhasusay sida hanti loo helo, sida loo haysto iyo sida loo kobciyo ama loo badiyo. halkan ayaa waxaan kuugu soo gudbinayaa fikradaha ugu muhiimsan oo aan ka faa'iiday The Richest Man in Babylon. Fikrada koowaad, kaliya talo ka raadi kuwa caqliga iyo aqoonta u leh mawduuca aad rabto. La tasho ragga iyo dumarka caqliga leh, raaso talada dadka shaqadooda maalinlaha ay tahay in ay maareeyaan lacagta si ay kaaga badbaadiyaan khaladaadka iyo khasaaraha kaaga imaan karo haddii kaliya aqoon la'aan iska samaysato ganacsi. Fikrada labaad, waxaad kasbato ugu horeyn naftaada ka bixi intaadan wax kala bixin. Waxaan helay wadada taajirnimada markii aan go'aansaday in qayb ka mid ah wixii aan kasbaday keyd ka dhigto. Laakiin wixii aan kasbaday oo dhan aniga ayaa iskale oo keyd ayay yihiin soo maahan, ayuu weydiiyay. Xaqiiqadu way ka fog tahay midaas, ayuu ugu jawaabay. Miyaadan kaba u baahnayn inaad iibsato ama aad samaysato haddii uu kaa go'o? Miyaadan dhar u baahnayn? Miyaadan cunto u baahnayn? miyaad ku noolaan kartaa Babylon adigoon lacag bixin? Maxaad ka haysataa lacagtaada bishii la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay? Doqon. Waxaad siisaa lacagtaada qof kasta aan ka ahayn naftaada. Haddii aad rabto inaad nolol raaxo leh ku noolaato, waxaad shaqaysato ama kasbato 10% kaydso. 70% waxaad ka dhigataa biilka naftaada iyo familkaaga. 20% waxaad iskaga bixisaa deemaha lagugu leeyahay. Waa haddii dayn lagugu leeyahay, haddii kale ku biiri keydkaaga. Fikrada saddexaad, xakameey qarashkaaga. Sideen 10% waxaan kasbado meel kaga dhigan karaa? Sababtoo ah waxa aan kasbado oo dhan kuma filna qarashkayga oo laga maarmaanka ah oo waxba igama soo hara. Dakhliga isoo gala iyo kan iga baxa mararka qaarkiis waxaa bata kan iga baxa oo dayn ayaan qaataa. Isku qaldin waxyaabaha ay naftaadu jeceshahay oo aad rabto inaad ku qanciso iyo waxyaabaha muhiimka ah oo naftaada iyo qoyskaaga u baahan yihiin. Sidaas darteed, xulo waxyaabaha ugu muhiimsan. Xulo waxyaabaha muhiimka kuwa ah waxaadna u isticmaashaa kaliya 70% oo dakhligaaga. Waxaad u aragto inay yihiin wax aan muhiim ahayn oo kaliya naftaada ay jeceshahay, red line ku xariiq oo meesha ka saar. Haddii 70% ay kugu yar tahay oo deen aadan lagugu lahayn, isku day inaad ku noolaato 90%, laakiin isku day inaad hoos u dhigto qarashkaaga oo aad kor u qaado dakhligaaga. Haddii ay kugu filnayn 90% inaad ku noolaato, raaso meel kale oo income-kaa soo gali kara. Si aad midaas u samayso, waxaa kor u qaadaa awooddaada ama aqoontaada kasbashada. Fikrada afraad, kordhi awooddaada kasbashada. Waxaan aqaanaa qof waxbarashada jaamacadda dhameeyay iyo qof kale oo aan weligiisa nasiib u yeelanin inuu wax barto. Labadoodaba waxay iskaga mid yihiin hal mid. Midka jaamacadda dhameeyay mar walba oo u baahdo inuu lacag badan helo, wuxuu kor u qaadaa aqoontiisa kasbashada si oo lacag badan u helo. Si oo midaas u sameeyo, wuxuu aadaa koorso oo ka caawiso ama fikrad ka siisa sida uu ku kasban karo lacag badan. Hadallada oo igu dhow waxaa ka mid ah, haddii aadan maskaxdaada shaqaysiinin, waa inaad cagahaaga shaqaysiisaa. Wuxuu dhahaa, mar walba aan wax badan sii barto, wax badan oo lacag ayaan kasbadaa. Midka kale, mar walba oo u baahdo inuu kasbado lacag badan, wuxuu raadsadaa shaqo, xoogiisa ayuu isticmaalaa. Hadallada oo igu dhow waxaa ka mid ah, shaqada waa cibaado. Intaad nooshahay, haddii aadan maskaxdaada maalin karin, waxaad ku dadaashaa inaad muruqaaga maalato. Haddii aad rabto inaad kasbato lacag badan, naftaada ixtiraam, aqoontaada kordhi ama muruqaaga kordhi. Fikrada shanaad, ka dhig lacagtaada wax isa sii badiya. Markaad lacag kaydsato, waxaad dareemaysaa kalsooni oo inaad wax qabsan karto. Sidaas darteed, waxaa ku arkaya dadkaas labo ayay u kala baxaan. Mid waa kan raba in uu kaa qaato lacagta aad kaydsatay oo wuxuu jeclaan lahaa in lacagta jeebkaaga ku jirto kasoo baxdo oo jeebkiisa ay soo gasho. Sidaas darteed, waxyaabaha kugu dhahay waxaa ka mid ah, lacagtaada ani ii dhiibo, aniga kuugu shaqaynayo. Ma haysataa intaas iyo intaas? Ma jeceshahay intaas iyo intaas inaad hesho bishii ama maalintii? Damac ayuu ku gelinayaa, baahidaada ayuu kuugu isticmaalayaa. Markii aad u dhiibato lacagta, waxaa laga yaabaa in aadan dib dambe u arag ama inuu kuugu dhaho sug ilaa iyo 6 bilood kadibna 1 sano kadib ama
5 sano kadib ilaa aad ka cafiso ama aad ka dhahdo iska dhaaf aakhira ayuu ka helayaa waaba inta oo rabay inaad dhahdo iska sugo kaliya markale ayuu ku soo noqonayaa mid kale labaadna waa kan ku baraya sida lacagta aad kaysatay loo maalgashto ama kuu sheegaya meelaha ay fiican tahay inaad maalgashato waxaa laga yaabaa inuu hami ku gelinin oo damac kaa soo ridin wuxuu kuu sheegayaa sida xaqiiqadu ay tahay wuxuu ku dhahayaa waxaa jira qaabab kala duwan oo dakhli kuugu soo gali kara dadaal iyo waqti inaad geliso ayay u baahan yihiin fikradda lixaad ka ilaali khasnadahaaga khasaaro mabda'a ugu horeeya iyo kan labaad ee maalgashiga waa amniga sida buuga the rule 1 investing ku qoran sidaas darteed si taxadar leh u baar meesha ugu fiican ee aad maalgashan karto ka hor inta aadan ogaan la'aan maalgashan oo aadan khasnadahaaga kaydka kala goynin intaas ayaan ka faa'iida buuga the richest man in Babylon adigana inaad wax ka faa'iida ayaan ku rajaynayaa haddii aad jeclaan lahayd inaad akhriso buugan waxaad ka heli kartaa asigoo free ah facebooka googa hoos ayaa link ku dhigayaa sida mar walba waad ku mahadsantahay waqtigaaga qiimaha badan waxaan ku rajaynayaa farxad iyo caafimaad badan